diyaarado nuuca qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopterska ayaa arbacadii la soo dhaafay waxay duqeyn u geysteen deegaanka Balidhidhin ee gobolkaasi bari. saraakiil u hadashay maamulka Puntland oo VOA-da la hadashay ayaa waxa ay ku tilmaameen weerarkaasi inuu ahaa mid lagu baacsanayay burcadbadeed halkaasi saldhig ku lahayd. hase yeeshee shalay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen salaadiin iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaankaasi kuwaas oo ku dhaleeceeyay maamul goboleedka Puntland iyo shirkadda Sarison la yiraahdo ee ka howlgasha Puntland in ay duqeeyeen deegaan dad shacabihii ay degan yihiin. warbixinta kulankaasi waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. kulan looga hadlayay duqeyn dhinaca cirka ah oo dhawaan loo geystay deegaano hoos yimaada maamulka Raas Caseer isla markaana ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda halkaasi ayaa shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankan ayaa siyaasiyiintii iyo salaadiintii kale ee halkaasi ka hadashay waxa ay soo hadal qaadeen sida ay uga xun yihiin falkii lagu duqeeyay deegaanada Baargaal iyo Balidhidhin oo ay qeexeen in dadkii goobahaasi ku dhaqnaa loo geystay dhibaato aad u culus oo xambaarsan khasaare baaxad leh oo isugu jirta naf iyo maalba. Faarax Maxamuud Yuusuf Dooxa Joog oo isagu ah madaxweynaha maamulka Raas Caseer oo ugu horeyn madasha kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyay xilliga ay duqeyntani dhacday iyo khasaaraha soo gaaray dadka ku dhaqan deegaanada la duqeeyay. bisha afarteedii waxaa dagaal cir iyo dhul ah ku qaaday deegaanada Baargaal degmada Baargaal ee ka tirsan maamul goboleedka Raas Caseer shirkad la yiraahdo Sarison oo cir iyo dhulba diyaarado iyo technical ku soo weerartay iyagoo ka soo haysta fasaxa Puntland. shirkadaas waxa sharciga u keentay Puntland baa keentay waxayna shirkadaas shaqadeedu tahay inay macdan dhulka kala baxdo inay sunta ku duugto iyo inay hubka sharci darrada waddanka soo geliso. shirkadaas dagaalka markay qaadeen waxay keeneen dhibaato oo maal iyo nafba waxay duqeeyeen muxuu ahaa baabuur waxay duqeeyeen dhul xoololey ah waxay duqeeyeen tuulooyin dhibaatay keeneen dadku waxay u keeneen barakac waxay u keeneen argagax waxay u keeneen barakac haddii ilaahay ku ron yahay waxa way xoolihii baa kala tegay tuulooyin dhan baa laga kala cararay marka shirkadaasu dhibaataasay keentay isla subaxdii waagu markuu bariyana qarkay ka baxeen maalintii ugu horeysay laba diyaarood baa laga raray oo macdana baa laga raray magaalada Baargaal. khasaare naf iyo maal baa ka soo gaaray dad badan baa ku dhaawacmay dad badan baa ku dhintay xoolo badan baa ku baaba'ay waa ku barakaceen dad khasaarooyin badan baa ka soo gaaray oo naf iyo maalba leh. sidoo kale Suldaan Cali Saciid Cawr oo ka mid ah salaadiinta Raas Caseer ayaa tafaasiil ka bixiyay qaabka ay wax uga dhaceen deegaanka Balidhidhin iyo inta ay la eg tahay waxyeelada dadka shacabka ee halkaasi ku nool soo gaartay waxaana uu dhinaca kale arrin aanay waxba ka jirin ku tilmaamay in deegaanadaasi ay ku sugan yihiin kooxo burcadbadeed ah oo ay diyaaradaha wax duqeeya baacsanayeen. sida wax u dhaceen waa la og yahay oo wax qarsoon ma aha. degmada Balidhidhin waxa duqeeyay diyaarado dad baa ku dhintay dadna waa ku dhaawacmay. sida la og yahay deegaankaas degmada Balidhidhin iyo Qandala iyo soonahaas 22 sano oo burburka Soomaaliya ka jiray iyo ka horba ma aha meel colaad lagu yaqaan. waxa la oran karaa deegaankaas weligeed xabadi kama dhicin. dadkaasuna dad dagaal yaqaan iyo dad dhibaato yaqaan iyo dad maaragtay waxyaalaha Soomaaliya ka dhacay ee la soo kulmay ma aha. arrintaas waxay keentay argagax waxay keentay dhibaato waxay keentay dadkii inay qaxaan. annagu qiil u noqon mayso nin burcada la doonay qiil marna uma noqon karto. haddii burcad la raadinayo ninka burcada waa la yaqaan Boosaasu jooga Garow jooga degmada Balidhidhina meesha ku taal waaba la yaqaanba. xeeb maaha maraakiib laguma soo xirto burcad kuma gaban karto waa la yaqaan. degmo la yaqaan meesha ay ku taal iyo waxa ay tahay weeye. waa arrin aan la aqbali karin waa arrin aan shacab ku haboonayn waa arrin aan Soomaalinimo ku haboonayn. waxaan leenahay arrinta maamulka Puntland iyo shirkadda qaabilsan ilaalinta badda ee la yiraahdo Sarison oo hadda meelaha ka howlgalayso oo diyaaradaha iska leh waxaan leenahay arrinta laga fiirsado. ugu dambeyntii Suldaan Cabdicaziis Maxamed Yuusuf Afgaduud oo ka soo jeeda deegaanada duqeyntu ka dhacday ayaa baaq uu ku dalbanayo in la joojiyo duqeynaha loo geysanayo deegaanada Baargaal iyo Balidhidhin u jeediyay maamulka Puntland waxaana sidoo kale beesha caalamka uu ka codsaday inaanay arrintani indhaha ka qabsan. waxaan oran lahaa maamul goboleedka Puntland horeyna aan uga digay in la iska daayo wadada qaldan oo lagu socdo isla mar ahaantaana la isxaq dhowro oo la xaq dhowro maamulada dadka bahwadaagta ay sameysteen. sidaa darteed waxaan leeyahay maamulka Puntland adduun magac baa ka hara taariikhduna iyada isqorta arrinta waa in laga hortagaa oo ay ka hortagaan baan oran lahaa. waxaan beesha caalamka ugu baaqayaa
waan leeyahay inaan indhaha ka qabsan shirkaddan Sarisayn oo aanan garanayn cid u xil saartay inay dad shacab ah oo xoolo dhaqato ah ay ku weeraraan diyaarado iyadoo loo adeegsanayo hadal bixin waayadan dambe socotay in ciddii la rabo in lala dagaalamo oo awood loo sheeganayo in la yiraahdo waa burcadbadeed waa shabaab waxaan cadeynayaa inaan burcadbadeed iyo shabaab aanay dhulka joogin waxaan leeyahay ummadda ku nool halka inay ka dhiidiyaan wax allaale iyo wixii aan ku wanaagsanayn dadnimadooda damiirkooda diintooda waxaan leeyahay Soomaali maanta nabad bay u baahan tahay nabad iyo wadajir in lagu soo dabaalo wax kasta oo meeshaas ka jira